aan ku bilaabnay ururka ONLF ayaa sheegay in xubno sarsare oo ka tirsan ururka oo uu ku jiro xubin golo dhexe inay booliiska deegaanka Soomaalida ay ku xireen magaalada Qabri Dahare. Ururka wuxuu sheegay in xubnaha loo xiray shir ururka ONLF u gaar ahaa oo ay ku qabteen magaaladaasi, taasoo ururka sheegay inay qabsadeen in cidna ay fasax uga baahnayn. Wuxuuna taageerayaasha ururka ay carooday ugu baaqay inay isdejiyaan. Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge ayaa goor dhaweyd qadka telefoonka igu waramay. Ugu horreynna waxaan weydiiyey bal inuu noo xaqiijiyo xubnahan la xiray. Qaawan xaqiijinaya xubno sarsare xubin golo dhexe maxamed Ibrahim oo muddo dheer guddiga fulinta ahaa, gudoomiyihii gobolka Qorraxe ee ONLF, gudoomiye ku-xigeenkii saddexdaaba ilaa hadda wuu soo gaaray. Waan xaqiijinayaa arrintaas. Xubnaha xiran bal faahfaahin naga sii sababta loo xiray iyo cidda xirtayba. Sababta loo xiray wallahi sabab la yaab leh weeye. Shir aad ku qabateen Qabri Dahare loo xiray bay leeyihiin sida ka soo yeeraysa. Way laba afleynaysaa dawladdu marka shir baa loo xiray, wax kala loo xiray. kolba waxbay u dhigayaan, laakiin muhiimaddu waxay ahayd waxa ugu weyn ku celcelinayaan waxaan loo jeegayn baayo shir aad ku qabateen Qabri Dahare ayaa loo xiray bay dhaheen. Ururka ONLFna shirkiisu fasax inuu helo ma baahno, sidaas ay tahay bay councilka Qabri Dahare meesha shirka lagu qabanayo ay xiyeen ogolaashidiisa, meesha lagu qabanayana oo calaamadiyeen, meesha goobta jimcaha lagu goobta ciidaha lagu tukado oo deyran oo albaab leh halka in lagu qabsado. Marka ma noo sheegi kartaa shirkaas waxa uu ku saabsanaa? Wuxuu ku saabsanaa in dib loo qiimeeyo oo la jaleeco waxqabadkii iyo wanaagii iyo waxaynu kala kulannay labadii sano ee nabadgelyada aan ku joognay, in dib dadka loo xusuusiyo qodobadii lagu wada heshiiyey, dawladda federaalkana dib u xusuusano, dawladda kililkana dib u xusuusano, dadka naga iyo shacbi weynaha Soomaaliyeedna aan dib u xusuusano, jabadana ay dib u qiimeyso oo la xuso oo markii u horeysay wuxuu ahaa heshiis taariikhi ah oo muxuu ahaay dhex mara jabhad gobonimo doona oo Soomaaliya oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida ogaadeenaya ama Somali state ama Soomaali galbeed u dagaalamayay la soo hor fariisto heshiis la kala saxiixdo, isla markaana dawladdaas ay qirato in dadkaas ay xaq u dir lahaayeen gobonimo doon ahaayeen oo ka bedelan argagixisadii ay dawladdii EPRDF iyo TPLF ku sheegi jireen. Marka marxaladda cusub heshiis lagu xusay heshiiskaas muxuu ahaay lagu soo gabagabeeyey ama lagu bilaabay marxaladdaas xusitaankiisa marka dee wax la qoonsado ma ahayn, waxa iyagu weliba soo dhaweeyaan oo ka qayb qaataan buu ahaa. Marka waxaan u malayn dee inay farsamo xumo badan iyo waayo aragnimo darre iyo jirto iyo baroorta odgeesa wey. Maxaa keenay in xubnihiina la bartilmaameedsado iyadoo ururka uu maanta u dabaaldegayo sanad guuradii labaad ee heshiiska nabadeed ee aad la gasheen Ethiopia? wallahi arrintaas kolley xubnaha in dhaqso loo soo daayaan rajeynaa, laakiin wada hadal adag baan federaalka iyo kililkaba kala gelinaa. arrintaas arrin la aqbali kara maaha in xubin golo dhexe oo xasaano iyo ilaashimo haysta inuu askari ku jiijiido maxuu ahaye jeelasha dhexdooda. wax ONLF aqbalayso ma xubna guddi fulinaho xubna heer gobol hogaaminka in sidaa loola dhaqmo, iyadoo xiriirkii iyo shaqayntii iyo wada hadalkii iyo heshiiskan ku joogno xafiiskii iyo guryihii ay jabhadu ka degeen Qabri Dahare oo ciidamo lagu wareejiyo, jabhadii xubnihii iyo ciidamadii iska dhigay hubka qalinka qaatay, mikrofoonka qaatay, boorarka qaatay, ku bedelay halgankoodii, in habkaa loola dhaqmo wax la fasiri kara maaha. laakiin warkiraa cakaarayaan kolley arrin aanu wada hadal adag ka geli doono in meel la saaray u baahan tahay, yani wax si caadi isaga dhacdhaca ma noqonayaan. Ma jirtaa wax tallaabo ah oo aad qaadeen si xubnahaasi loo soo daayo ama cid aad kala hadasheen? maxaase jawaab ah oo aad ka hesheen? wallahi madax badan oo dawladda lala xiriiray, laakiin ilaa iyo hadda warar isburinayo oo ballanqaadyo been oo hirgelin unbaa laga hayaa. xalayto inay hawsha dhamaataa la filahayay, saaka subaxii inay dhamaataa la filahayay, haddana duhurkii bay dhammaan baa la filahayay. marka ma aqaana dee qowlka siday u qadarinayaan, mar walba waa degdeg baa loo xallin bay leeyihiin. marka waxaa kaloo jira sideedaba bilihii u dambeeyey iyo sanadkii u dambeeyey dhibaatooyin laga soo sheegayo gobollo badan oo gobollada iyo deegaanada way isdhaamaan. marka degmada loo dhaadhaco tuulooyinka iyo degmooyinka iyo gobollada iyo magaalo madaxda weyn iyo magaalooyinka waaweyn ee Dirdhabe iyo Jigjiga iyo Addis Ababa iyo Gode iyo magaalooyinka way fiicnaan, laakiin degmooyin badan baa calaacal iyo laga sheegayo xabada lagu riday xafiis ONLF, calaamahan la dejiyey, xubno la hor istaagay, si maaragtay daandaansi badan iyo muxuu ahaay qodoqodayn badan. marka
anagu dagaal uma xiisaysnin, waa nabadda aan u xiisaysannahay, inaan nabadda ku guulaysanaan qabnaa, in nabadda dadka iyaga wax badan ku taraysaan qabnaa, in siyaasad si nabada u fushay ay guulo badan keeni karaan baan qabnaa. waxaan dareemaynaa gacan bidixayn iyo hay-adihii ciidanka iyo hay-adaha sharci dejinta oo si khalada loo isticmaalayo oo maaragtay misuse lagu samaynayana waa ka muuqataa. arrintaa wadahadal baan ka gelayna, meel baan saaraynaa marka, laakiin dadka iyaga cadhaysan iyo dhibsanaya arrintaa inay isdejiyaan ilaa iyo inta aan ka quusanayno, inay naga warsugaan. nabadda hadan inoogu jirtaa, nabadaan kaga guulaysanaynaa. dalka iyo deganaanshihiisa iyo hantida iyo dawladnimada iyo dawladda inaga iskale. dad si xun u isticmaalahaya awoodda dawladnimada yayna ina hagin insha allah. kaasina wuxuu ahaa Cadaani Hirmooge, afhayeenka ururka ONLF oo iga waramayay xubnaha sarsare ee ururka oo lagu xiray magaalada Qabri Dahare. dhanka kale si aan cabashada ururka ONLF aan jawaab uga helno, waxaan la xiriiray Cumar Faaruq Warfaa, wasiir ku-xigeenka madaxtooyada ee deegaanka Soomaalida. waa la jiran xubnaha la xiray, waxa lagu xirayna waa xadgudub sharci darra oo ay sameeyeen. waxay ku xadgudbeen nidaamka iyo qaanuunka xisbiga handala waa muwaadin ay qaanuun iyo dastuur iyo sharci uu xayndaabayo. taa hadda ruuxi ka gudbana sharciga caadiga un baa la marinayaa. kolka xubnahani sharci darro ay sameeyeen baa jirta oo laba ah. kow, amar diido ay amar diideen, iyo labo, keelaayadii magaalada meelihii xadkaha ku xunaa laftirkooda oo ay jareen oo checkpointiyadii dawladdu ay samaysay oo iyagu ay gacantooda ku gubiyeen. labadaasaa sharci darraa, labadaasaana lagu haystaa. marka ay diideen muxuu yahay? wuxuu ahaa waxay dalbadeen isu soo bax, dad ay isu soo bixinayaan. marka waxaa la yidhi fasaxii soo dalbada, fasaxii mayan soo dalbanin, iyagoon soo dalbanin bay markaa soo bixi sameeyeen. laakiin ururku wuxuu ku doodayaa inuusan wax ogolaasho ah uusan u baahnayn marka ay shir qabsanayaan oo ay xaq u leeyihiin. shir iyo way kala duwan yahay soo bax. adduunka meel walba oo soo bax laga qabanayo oo aan ogolaansho u baahnayn ma jirto. waayo kow, waxyaaba nabadgelyo darraa ka dhalan kara. nabadgelyo darrada haddii aan cid mas-uuliyadiisa qaadaysaa jirin, dee ma noqonayo markaa isaga ma noqonayo soo bax nabadeed oo dee ruux mas-uuliyadiisa qaadanaysa. waa inuu jiro number kow. number labo, waxaa jiradeedii waxyaabo kale oo arrangement ah oo in la diyaargareeyo dawladdu iyo cida hay-adaha amnigu inay diyaargareeyaan ay tahay. meesha lagu shirayo in la diyaariyaa iyada laftirkeeda looga baahan yahay. waxyaabahaas oo dhan fasax bay u baahan yihiin. waxyaabahaas oo dhanna fasax mayna u qaadan. iyadoo maanta ay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee ururka nabadna ay jirto, maxaa keenay in la xiro xubnahaasi? wallahi de waxaa keenay maanta ay sharci jabintu dhacday. maantana hadday shalay dhici lahaydna saa oo kale un bay noqon lahayd. kolka wax lala beegsanaya ma jira, waxaan kulmay un sharciga la jabiyey iyo maalinta. marka maxay tahay tallaabada xigta ee laga qaadayo xubnahaasi hadda xiran ee ka tirsan ururka? waa eedeysanayaal nidaam iyo dastuurka processka un bay marayaan. iyaguna way dabcan way istifaaci. dee maxkamadda iyo garsoorka un baana kala saari doona insha allah. ururka oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen in xubnahaasi sarsare ee ururka loo xiray shir ay ku qabteen magaalada Qabri Dahare. marka taa maxaa ka jiro? may shir ay qabteen looma qabanin. amar diido sharciga ay diideen baa loo qabtay. amar diidadaasaana lagu haynaya. laakiin shirku dee maalin walba way qabsadaan, meel walbana way ku qabsadaan. wax ku gooniya maalinka shirka ay sheegayaan shirra maba ahayn. isu soo bax bay qabteen. isu soo baxaas iyo inta sharci ahayn, maadaama oo ayn fasax ka haysanin maamulkii gobol iyo maamulkii magaalada ee ku sugnaa goobtaas. marka ma ogaan karnaa isu soo baxaasi waxa uu ku saabsanaa? iyagu taa wallahi iyagaa la weydiin. laakiin isu soo bax annaga xagga annaga sharci darra kaga san bu ahaa, maadaama aansan fasaxi loo haysanin sidaa unbu ahaa. laakiin isu soo bax iyagu mudaharaad magaaladaha qaarna ay ku qorayeen oo mudaharaad ay lahaayeen, meelaha qaarna waa xus ay lahaayeen buu ahaa. marka mid nabadeed ma ahayn miya isu soo baxa oo waa xaqiijiseen? isu soo baxa uu dib ka noqday waxaa ka muhiimsan wadiiqadii loo maray. wadiiqadii loo maray waa sharci darra ahayd, maadaama oo ay tahay mar kastoo isu soo bax la samaynayo wakti lagu jiro COVID-19 oo aad og tahay dadka hadda isumaanshahooda in taxadar laga sameeya ay meesha ku jirto. fasax la-aanta weeyaan waxa lagu hayste. isu soo baxa waxa ka dhashay oo aamini darra ah ma aha. waa hagaagkaasina waxa uu ahaa Cumar Faaruq Warfaa, wasiir ku-xigeenka madaxtooyada deegaanka Soomaalida oo ii waramayay aan Facebook markan eego qodobkaas. dhageystayaashana waxay ka yiraahdeen
maxamed axmed bulaale oo jooga taleex waxa uu leeyahay xubnaha sarsare oo ka tirsan ururka ONLF ee lagu xiray qabridahare waa arrin dhibaatadeeda leh keeni kartana xiriirka maamulka hadda jira iyo ururka khilaaf hor leh inuu markaa ka dhasho. cabdulaahi xaaji xuudi waxa uu joogaa muqdisho waxa uu leeyahay xubnaha ONLF ee lagu xiray magaalada qabridahare runtii waxa ay muujinaysaa in xukuumadda deegaanku ay bilowday caburinta siyaasiyiinta balse waxaan ugu baaqi lahaa dadka maamulka haya inay ka fiirsadaan tallaabooyinka la qaadayo oo keeni kara mushkilad hor leh.